daawadayaal wardegdega maxaa ka jira inay safaaradda Mareykanka ee Nairobi ku leedahay Kenya ay digniino soo dirsan muwaadiniinteeda markaasi Mareykanka oo inooga digayso in halkaas oo ah magaalada Nairobi ay ka dhacaan falal markaasi ay maleegayaan kooxaha argagixisada waa sida ay sheegeen taariikhdu markay 13 bishan sidoo kalena indhoweyd baa safaaradaha Mareykanka ee caalamka ay ku kala leedahay waxay muwaadiniinteeda uga digaysay inay ku safraan qaybo kamid ah Afrika iyo sidoo kale qaybo kamid ah Europe oo ay ka mid tahay dalka Ruushka oo indhoweyd bay ishayaan Belarusia ayaa sidoo kalena ay sheegtay balse maxaa ka jira in magaalada Nairobi inay digniino hor la u dirtay muwaadiniinteeda Mareykanka ee ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya sida qoraalkan daawadayaal lagu yiri safaaradda Mareykanka ee ku leedahay magaalada Nairobi digniin safaaradda Mareykanka ee Nairobi October 13 2023 hadaba meelaha ugu muhiimsan ee markaasi waxa la leeyahay meelaha ugu badan ee ay maraan dadka ajaanibta ah ee dalxiisayaasha ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya sidoo kalena meelaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta Mareykanka ee ajaanibta ah iyo sidoo kale dalxiisayaasha ku sugan magaalada Nairobi inay ka digtoonaadaan bartilmaameedyo markaasi laga yaabo inay argagixisadu ay ka fuliyaan weerar suurtagal ah markaasi lagu yiri qoraalkan inay markaasi digniino hordhaca oo ay leeyihiin meelaha ugu muhiimsan ee hoteelada meelaha safaaraduhu ka agdhow yihiin inay muwaadiniinta Mareykanka ah ay aad iyo aad uga digtoonaadaan iyo sidoo kale hoteelada caanka indhoweydba waxay soo tirisay digniino la xidha in safaaradaha markaasi caalamka oo dhanba ay ka digayaan oo ay leeyihiin markaasi ka digtoonaada oo iska ilaaliya lagu leeyahay ka digtoonow meelaha aad tegaysid oo markaasi aad mar walba aad feejignaan aad samaysid dib u eeg qorshahaaga amniga gaarka lana soco ayaa leeyahay gargaarka degdega ah ee safaaradahu ay bixiyaan si gaar ah safaaradda Nairobi la soco warbaahinta gudaha waxa markaasi ku soo kordha oo ay leeyihiin la soco newska ka fogow meelaha mudaharadayaasha ay markaasi ay mudaharaadyada ku dhigaan iska ilaali dadka faraha badan meelaha ay markaasi mashquulka ah oo ay markaasi safaaradu ka wado Mareykanka digniinada oo markaasi wadamada caalamka oo dhanba uu la wadaagay muwaadiniintiisa waxaa kamid ah wadamada Afghanistan oo iyo Belarusia Burkina Faso markaas Iraq baa kamid ah Iran Libya Mali Ruushka Soomaaliya ayaa kamid ah South Sudan Syria Ukraine Venezuela Yemen waxaa jira wadamo fara badan oo safaaradda Mareykanka ay sheegtay inaan lagu safri karin muwaadiniintooda waxay uga digtay inay markaasi ka digtoonaadaan wadamadaas magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa iyaduna hadda digniino hor leh sababtana ilaa hadda lama garanayo wixii warre ka soo kordhan halkan dib u soo gelin doona fadlan muuqaalkana si share gareysay muwaadiniinta Soomaalida ah ee laga yaabo inay u safrayaan wadamada halkan ku taxan inay ka digtoonaadaan waa mahadsantiin ogeysiis ma ku sugan tahay dalka Turkiga ma u baahan tahay sawiro aroos oo la xiriira dacwadaha dhoofka sida guurka iyo sidoo kale qoysaska isdhalay kuwaas oo la geyn doono safaaradda markaasi ku shaqale iyo sidoo kale wax kasta oo la xiriira sawiro photographer oo shakhsiyadeed iyo kuwa aroos muuqaalo qurxoon laguna duubi doono guud ahaan Turkiga si gaar ah magaalooyinka Ankara iyo Istanbul haddii magaalo kale aad joogtana waa lagu qaban doonaa hawshaasi farshaalayaal anigoo Cabduul Nadaara ah ayaa sawiradaasi idinka qaadi doona annagoo markaasi awood u leh inaan si professional ah iyo sidoo kale sawiro qurxoon muuqaalo qurxoon oo aroosba idinka qaado wixii faahfaahinta dheer fadlan waxaad nagala soo xiriiri kartaan lambarkan idiin sheegi doono oo ah eber 553 936 78 41 haddii aan mar kale kugu celiyo waa eber 553 936 78 41 waa mahadsantihiin fadhiga iyaguna waa Ankara